موبيلكيدي سلمى وهكا سليق جديسة ويقرتين موبيلكيدي هاي باسورد كنا ويفرتي موبيلكيدي والنقدي وتاسو سليق إن شوكتا إن شاء الله لما كان مركع عقابتي نقول هلا قليبا مريض دورنا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدم حسن كان وحان موبيلكي سو باهي وسو فافي عيدان كبوليسكا سوماليلان aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waayo mobilkayga inaan salahayn wad helisaan saa kaga qosay hadana maanta aan helay waxa weeyaan saligii booliska niyo hargeysa xafiiskana fadhiya maanta taariikhda tahay 16 bishii 10aad 2023 waxa jirtay 20ka bisha 10aad in habeen ciidanku butuuliya niman ordaya inaga hor yimaadeen anagoo soconna nimankii waanu qabanay nimankii mobil baan ku soo saaray markii kaadhadhkii mobilkii ku jiray markiiba way tuureen waxay markaa nimankii muddo aanu raadinaynay inaanu helo ciidan ay mobilkii ka soo qaateen waxay muddadii aan raadinaynay nimankii way sheegi waayeen tuugtaas inay cidii ay ka qaateen ay sheegaan mobilkii waxaan dhignay baajka bileyskii markaan dhignay waxa weeyaan waxa la soo helay Salma Faarax oo ah inantii mobilka lahayd oo ku aragtay baajki bileyska markaan dhignay halkan xafiiskayga fadhiday imika mobilkeediina aan ugu haynaa waxa markaa Salma waxaan ku wareejinaynaa mobilkeedii oo uga soo qabanay tuugtii halkan hor fadhido oo ku soo dhaweynaya Salma bulshadana waxaan leeyahay aan u shaqeyno ee Somaliland waxa weeye in bileyskiina ku kalsoonaataan way waxaan diyaar u nahay si kasta iyo hawl kasta inaan idin qabanno hadiya habeen bayaan idinkeeda shaqeyno ku soo dhawow Salma bal mobilkaaga oo nimka ku halay oo ka quusatay aanad garanayn cidii ka qaaday imkana markaan baajka bileyska ku dhignay aad soo garaacday lambarkayga oo lagu qoray imkana xafiiskayga aad la fadhido ku soo dhawow Salma waxaan u dirayaa dadka faalka noocaas oo caadiistay inaydan bileyska ka baxsanin oo mar walba bileyska gacantiisa ku jiraysan waxaan u celinay bulshada inay waxa ka waantowdo in ubadkoodina dadku halkay marayaan iyo waxay qaadayaan ubadka laga warhayo bismillaah horta ugu horeyn ilaahay baa mahadle marka ugu horeysa mar labaadkii waxaan u mahad celinay ciidanka bileyska Somaliland waxay ku dhacday maalinkii taariikhdu ahayd 20kii bisha 10aad waxa dhacday intaan baska October intaan raacay markaan baska soo raacay lacagtii baska mobilka soo galiyay biinka soo galiyay mobilka ayaa waxa dhacday gabadhii la fadhiday daaqada furtay ma gabadhii daaqadii soo furtay baskuna meel jaam ku jiro weeris istaagay kadib tuugu magacanta halka ka soo galiyay mobilkiisa la booday mobilkii markuu saayga la booday aan walaal ii qabtay cidna ninkii baskuna iska socday cidna qaban weyday adoo aan iskaga samro ismaal lahayn waad helaysaa mobilkaagi saasaan kaga qoostay saasaan ku daayay aduu iyadoo muddo ka soo wareegtay oo maanta bishu tahay 26 maalintii laga qaaday mobilkana 20kii bisha ahayd waxaan mobilkii soo baahiyay oo soo faafiyay ciidanka booliska Somaliland aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waayo mobilkayga inaan salahayn wad helisaan saa kaga qosay hadana maanta aan helay alxamdulillah ciidankan u mahad celinay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ciidanka booliska Somaliland bulshadana waxaan leeyahay ciidanka booliska ku xidhnaada oo markay arimahaas oo kale la soo darsaan maxaa dhacay booliskina ku xidhnaada way soo taanu manaan soo dacwadna ma soo gudbinin sidaasan ku daayay hadana anigu dacwadna soo gudbin hadana mobilkaygii la soo helay oo la soo inta ay soo dadaalka ii bixiyeen inta soo dhan dadaalka ii bixineen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad bad mahadsantina shaqo fiican badaysan shaqadiina barta ka sii wadiyay dadaalkina allahna ha idin garab galo assalaamu calaykum waraxmatullaahi